moogtahay in ninkan uu yahay ninka ugu sanka dheer adduunka waxaana lagu magacaabaa Thomas. dherarka sankiisu waa 7.5 inch oo u dhiganta 19 sentimitir. moogtahay in burushka ilkaha ee aad ku cadayato subax walba la sameeyay sanadu markuu ahaa 1498 gudaha dalka China. moogtahay ka hor inta aan ikhtiraacin lambada ay dadku iftiinsadaan in ay dadku seexan jireen 10 saacadood habeen kasta. moogtahay in haddii aad abaalmarinta Oscar aad noqoto dadka u sharaxan oo aad weydo amba aad ku guuleysan weydo waxa lagu siinayaa lacag dhan 50,000 oo dollarka Mareykanka, taas oo ka qaalisan xitaa jaayisada Oscar qiimaheeda saxda. moogtahay in sanadii 1889 boqoradii dalka Talyaaniga ka aarimin jirtay oo lagu magacaabi jiray Margaret ay dalbatay biisadii ugu horeysay waliba hab delivery ahaana. moogtahay in haddii aad hal dhibco biyaha Zamzamka aad ku darto 1,000 dhibcood oo biyahan caadiga biyaha caadigi ay yeelanayaan tayada ay leeyihiin biyaha Zamzamku. haddaba tani waa cilmi baaris uu sameeyay Dr. Masaru Emoton. moogtahay in boostada adduunka ugu qotada dheeri ay ku taalo Suzami Bay ee dalka Japan waxayna biyaha ka hooseysaa 10 mitir. moogtahay in yaxaasku uusan u dhiman da'diisa oo weynaata balse taas bedelkeeda wuxuu u dhintaa 2 mid uun: 1 macaluul, 2 xanuun. moogtahay in shibirta lagu magacaabo Australian Emu ay dhasho beed midabkiisu yahay blue, culayska beedkeeduna waa 1 kg. moogtahay in xiddiga kubadda cagta ee Cristiano Ronaldo uusan khamri cabin sidoo kale sigaarna cabin. sidoo kale ma laha tattoo jirkiisu sababtoo ah dhiiggiisa ayuu shubaa 2 jeer mana rabo inay taasi saamayso. mana cabo khamri maxaa yeelay aabii wuxuu u dhintay dhibaatooyin kaga yimi khamrigu cabi jiray maadaama cabtay ama sikhraan ahaa. haddaba daawade haddii adiga su'aalan ku weydiiyo waa kee gowdka saxdii ma Cristiano Ronaldo mise waa Lionel Messi, commentiga hoose iigu sheeg. hana iloobin inaad like saarto muuqaalkan sidoo kalena aad uga saaxiibto barteena TikTok iyo barteena YouTube.